Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaal mar labaad iyo muuqaal cusub. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa sheekada mid ka mid ah ka baxsiyada xabsiyada, taas oo ah sheekada El Jabo. Qofka aan garanin waxa uu yahay El Jabo waa mid ka mid ah dadka ugu waaweyn ee ka ganacsaday mukhaadaraadka ee soo maray taariikhda bini'aadamka. El Jabo wuxuu ahaa madaxweynaha mid ka mid ah kooxaha daroogooyinka ee waddanka Mexico. Kooxdaas oo lagu magacaabi jiray Sinaloa Cartel. waxayna gaadhaysay ninkan hantida uu ururiyay intuu ku guda jiray hawshan ku dhawaad 16 bilyan oo dollar. waxaynan muuqaalkan uga hadli doonaa hawshii baxsad ee waalid ahayd ee uu sameeyay dambiilahani si uu uga baxsado xabsiga. ninkan wuxuu awooday inuu ka baxsado xabsiga 2 jeer noloshiisa. markii koobaad waxay ahayd sanadkii 1993 waxaana lagu xidhay xabsi ku dhex yaala waddanka Mexico oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah xabsiyada ugu ilaalada adag waddanka Mexico. wuxuuna ku qaatay dhowr sanadood xabsigaas. laakiin sanadkii 2001 waxa uu inuu ka baxsado xabsiga isagoo sameynayay hanjabaadi uu hanjabayay ilaaladii xabsiga iyo laaluusho uu siinayay ilaalada. wuxuuna ku baxsaday mid ka mid ah gaari gacanada lagu qaado maryaha wasakhda ee xabsiga. kaliya wuxuu galay maryaha hoostooda, sidaas ayuuna ku baxsaday. waxaana ka caawiyay arrinkan ilaaladii jeelka oo dhammaantood u baneeyay wadadiisa laaluushkii uu bixinayay dartii. intaa kadib wuxuu xor ahaa dhowr sannadood dambe, laakiin dadaalo badan oo ay iska kaashadeen ciidamada Mexico iyo kuwa Mareykanku ayaa u suurtagelisay inay awoodaan mar labaad inay soo qabtaan ninkan sanadkii 2014. dabcan waddanka Mareykanku sidoo kale uu daneynayay ninkan arrinkiisa, maxaa yeelay xaddiga ugu badan ee daroogo ee la keeno waddanka Mareykanka waxay ka iman jirtay kooxdan El Jabo. sidaas darteed ayuu ugu bixiyay Mareykanku lacag aad u badan la dagaalanka daroogada xitaa waddanka Mexico gudihiisa. markay iskaashadeen waxay awoodeen inay soo qabtaan mar labaad ninkan. kadib markii la soo qabtay Mareykanka ayaa ka codsaday Mexico inay ninkan iyaga u soo dhiibaan si aanu u baxsan mar labaad, sababtoo ah Mareykanku wuxuu shaki ka qabay in ninkan uu mar labaad laaluusho askarta Mexico kadibna sidaas kaga baxsado xabsiga. laakiin booliskii Mexico way diideen arrinkan, waxaana sheegeen in markan ay aad uga taxdirayaan inuu helo ninkan wax fursad uu ku baxsado. waxayna geeyeen mid ka mid ah xabsiyada ugu adag uguna ilaalada adag ee ay leeyihiin. laakiin waxayna malaysan inuu mar labaad ninkani ku celinayo baxsadkii uu weliba sameynaya howlgal baxsi oo aanu qofna sawiran karin. kooxda uu maamulayay El Jabo waxay ku caan ahaayeen qodista godadka, maxaa yeelay hawshan ay hayaan ee ah tahriibinta maandooriyaashu waxay ahayd mid si weyn ugu xidhan godadka dhaadheer ee ay u kala qodi jireen waddanka Mexico iyo Mareykanka. wuxuu siiyay El Jabo kooxdiisii isagoo ku jira xabsiga amar ah inay qodaan god dhererkiisu yahay ku dhawaad 1 kiiloomitir iyo badh oo ay ka qodaan xabsiga hoostiisa. waxayna fuliyeen shaqaalihii u dhagan uula madaxweynahoodu hawshii, waxayna bilaabeen inay rumeeyaan hadalkii ka soo yeedhay kaliya mid ku jira xabsiga gudihiisa. wuxuu leekaa godka ay qodayeen ku dhawaad 10 mitir oo dhulka hoostiisa, manay adeegsaneen qalab waaweyn iyo qalab ku shaqeeya koronto oo ay ku qodayeen godkan, maxaa yeelay qalabkan waaweyn waxaa laga yaabaa inuu fashiliyo hawsha. waxaana lagu qodayay godkan kaliya qalabka lagu adeegsado gacmaha, taasoo ka dhigtay inay qaadato qodistani waqti dheer. laakiin iyadoo jirta sidaasi haddana waxay ku dhammaatay hawshan si xirfadaysan oo loo qorsheeyay si maskax badan. wixii koobaad ay sameeyeen kooxda El Jabo waxay ahayd inay ka iibsadeen dhul meesha ugu dhow xabsiga uguna habboon ee ay ka iibsan karaan. waxayna ka dhiseen dhulka ay iibsadeen derbiyo madhan oo hoostooda ayna ka dhisneen wax kale si ay ugu qariyaan hawshooda qodista. iyadoo ay dhibaatooyinkaas oo dhani jiraan haddana waxay ku qasbanaayeen kooxda El Jabo inay ku dhammeeyaan hawshan si dhaqsa, sababtoo ah waxaa la sheegayay warar ah in goordhow laga saari doono El Jabo xabsigan loona wareejin doono xabsi kale si looga hortago qaab kasta oo ay suurtagal tahay inuu ku baxsado El Jabo. waxayna ku qasbanaayeen kooxda El Jabo inay u shaqeeyaan qaab adag oo ay shaqaynayaan habeen iyo maalinba si ay ugu dhaqsadaan qodista godkan. sidoo kalena guryahan ay dhiseen waxay soo jiiteen dadka marayay waddada, waxayna ka fikireen sidee guryahan cidlada looga dhisay meeshan cidlada. tanna waxay ku keentay kooxda El Jabo culays weyn. dhanka kale El Jabo wuxuu isu maleynayay inuu yahay maxbuuska ugu caqliga badan xabsigan, wuxuuna bilaabay inuu la sameeyo xidhiidho wanaagsan ilaaladii xabsiga si ay u yaraadaan shakiyada ay ka qabaan ilaaladu. laakiin xitaa isagoo u dhaqmaya sidan wanaagsan haddana way ogaayeen ilaaladu ninkan inuu u jeedo waxyaabo kale iyo inuu waqti walba samayn karo khiyaamooyin uu kaga baxsan karo xabsiga. sidaas darteed dhammaan wicitaanada iyo fariimaha u imanaya ninkan iyo kuwa ka baxayaaba waxay ahaayeen qaar la ilaaliyey oo la og yahay waxay yihiin. laakiin muu ku jirin fariimahan hal wax oo muujinaya ama looga shakiyo inuu dhacayo baxsad. El Jabo wuxuu u sabray hawshan waqti dheer, laakiin wuxuu noqday sabirkiisii mid yaraanaya marba marka ka sii dambaysa. wuxuuna ahaa mid ka cabsanaya in marun loo qaado xabsi kale ka hor intaanay fulin hawshani. kooxdii El Jabo waxay ogaayeen bilowgii inuu ka horeeyo jid aad u adag
laakiin iyadoo ay jiraan dhammaan adeegyadaasi waxay awoodeen inay dhammeeyaan hawshii qodista, waxayna ku dhammeeyeen kaliya 16 bilood. waxayna sheegeen dadka cilmiga u leh hawshan qodista in godkan oo kale ay qaadanayso qodistiisu muddo 2 sannadood ah, weliba marka loo qodayo sida iyagu adeegsanayeen oo aan la adeegsanayn wax qalab oo waaweyn. sida ay u awoodeen inay ku qodaan godkan 16 biloodna runtii waxay ahayd qaab la yaab leh. godkanna sideen hore usoo sheegnay wuxuu ahaa mid loo qoday si xirfadaysan. ugu horrayn saqafkiisa iyo darbiyadiisu waxay ahaayeen qaar laga sameeyey looxaan, waxaana jiray sidoo kale dabdhaliyayaal ay adeegsanayeen si ay u iftiimiyaan godka. waxaana jiray sidoo kale tuunbahaweed soo galaysay gudaha godkan si loo ilaaliyo xaddiga oksijiin ee soo galaysa godka. sidoo kale waxay sameeyeen waddo u eg midda tareenka oo ay ku xidheen mooto si ay mootadu ugu dul socoto kaliya waddadan ay sameeyeen. mootadanna waxay ku sii xidheen 2 qalab oo kale oo ay u adeegsanayeen inay kaga soo saaraan godka ciidda. dabcan xaddiga ay laakeed ciiddan ay ka soo saarayeen godku waxay ahayd mid aad u badan, waxayna ka cabsanayeen in haddii ay ku ururiyaan dabadda guriga ay ka shakiyaan dadku markay arkaan. waxayna ku dadaalayeen inay ahaato dabadda gurigan ay ka fulinayeen hawshani mid siman mar walba. sidaas darteed culayska saarnaa kooxdan qodaysay godku wuxuu ahaa mid soo badanaya maalinba maalinta kasii dambaysa. laakiin ugu dambeyntii waxa la soo gaadhay maalintii balanta oo ku beegnayd maalintii taariikhdu ahayd 12 Julaay sanadkii 2015. godkii ugu dambeyntii wuxuu soo gaadhay qolkii uu kaga jiray Al-Jabba xabsiga. markuuna ogaaday Al-Jabba inuu soo gaadhay godkii qolkiisa, markiiba wuxuu soo aaday dhankii godka. muuqaalkana waxa duubtay kamaradii lagu ilaalinayay Al-Jabba ee ku taalay qolkiisa, waxaana duubtay isagoo ku daba dhuumanaya darbigii loogu talagalay inuu kaga qarsoomo kamarada markuu maadhanayo ama qubaysanayo. dabcan raggiisan u shaqaynayay way garanayeen qaabka uu dhisan yahay xabsigu iyo meesha uu kaga jiro Al-Jabba, wuxuuna ahaa qorshahoodu inay ku soo beegaan godka meeshan qarsoon si ay ugu fududaato hawshani. markii uu ku soo degay Al-Jabba godkii hore waxay ka saareen mootadii ku dul soconaysay waddadii ay u sameeyeen si uu ugu baxsado waqti gaaban iyo xawaare sareeya. waxayna ka wada saareen gudaha godka dhammaan baaldiyadii ay ku ururiyeen ciidda. markii uu gaadhay Al-Jabba dhinacii kale ee godka waxa la kulmay qaar kale oo ka mid ah kooxdiisii, waxayna siiyeen maryo cusub, waxayna saareen mid ka mid ah baabuurtii dhismaha ee ku diyaarka ahayd dabadda guriga. sidaas ayuu ugu guulaystay Al-Jabba inuu sameeyo mid ka mid ah baxsadkii xabsi ee ugu yaabka badnaa taariikhda. laakiin kadib dhammaan waxaasoo dhan mar kale ayaa la soo qabtay haddana Al-Jabba dhowr bilood kadib. dabcan qof sida ninkan oo kale ah mar walba wuxuu ku noolaanayaa nolol aan sugnayn, mar walbana waxaa ku qasaba inuu ka tago meel uuna tago meel kale. markanna gurigan uu tegay Al-Jabba wuxuu ku yaalay meel lagu magacaabo guryihii nabadda. intaanu iman ka hor dadkii deegaanka u ahaa meesha uu ku yaalay gurigani ayaa arkay rag ku hubaysan hub culus oo gelaya guriga, waxayna waceen booliskii oo ay u sheegeen arrinka. boolisku waxay kor kala socdeen dhaqdhaqaaqa ka jira gurigan, waxayna bilaabeen inay dhageystaan wicitaanada imanaya gurigan ama ka baxaya. mid ka mid ah wicitaanadii ayay ku maqleen warbixin odhanaysa ayeeyo ayaa soo dhow oo imanaysa mar dhow. waxayna fahmeen boolisku in ayeeyadan la sheegayo ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn kooxaha maandooriyaasha, ama uu noqon karo qof muhiim ah oo ka mid ah dadka ay daydayayaan. waxayna diyaariyeen ciidamo aad u hubaysan si loogu qaado howlgal adag gurigan kadib markay timaado ayeeyada la sheegayo. dhowr toddobaad kadib ayuuna yimi qofkii gurigii, waxayna ogaadeen boolisku in ayeeyadu ay tahay midkoodii ugu weynaa. waxayna ogaadeen ninka looga jeeda uu yahay Al-Jabba laftiisii. booliskii iyo ciidamadii kumay degdegin hawshan, waxayna la sugeen waqtiga ugu habboon. ugu dambeyntiina waxay gaadhay waqtigii, waxayna goodoomiyeen ciidamadii gurigii, waxayna dileen qaar badan oo ka mid ah ilaaladii Al-Jabba iyo caawiyaashiisii. laakiin ma awoodin inay qabtaan Al-Jabba. ninka mar kale ayuu baxsaday, wuxuuna ku baxsaday god ka qodnaa suuliga oo loo diyaariyey in lagu baxsado. waxayna ahaayeen kooxdani qaar ka qodo meel walba god si ay ugu baxsadaan haddii ay dhacaan howlo kadisa oo ayna ku talagelin. markii uu baxsaday Al-Jabba wuxuu ka xistay gaadhigii ugu horreeyay ee uu helay, laakiin muu awoodin inuu u baxsado meel fog. si toos waxaa qabtay qaar ka mid ah ciidamadii federaalka ee waddanka Mexico. wuu ku farxay Al-Jabba arrinkan sababtoo wuxuu maleynayay inuu ka baxsan karo askartan ama laaluushi karo. markiibana wuxuu u soo bandhigay laaluush qiimo aad u sarreeya oon caqligalna ahayn, laakiin nasiib xumo uu beenoobay melihiisii. wayna diideen askartii afarta ahayd inay qaataan laaluushka. kadib markuu arkay in dhinaca jacaylka uu soo bandhigayo askarta ayna lahayn wax faa'iido ah, wuxuu bilaabay inuu u hanjabo. wuxuuna bilaabay inuu ugu hanjabo inay dhimanayaan goordhow. booliskii waxay si toos ah ula xidhiidheen madaxdoodii, waxayna u sheegeen qofka ay hayaan. laakiin madaxdoodii waxay u sheegeen in qaar badan oo ka mid ah kooxda Al-Jabba ay ku soo jiraan waddada oo ay doonayaan inay qaataan Al-Jabba. waxayna u sheegeen inay ku dhuntaan hotel yar oo u dhowaa goobta ay ku sugan yihiin, una diyaariyaan nafahooda inay ka hortagaan tiro badan oo ka mid ah kooxda Al-Jabba oo ku hubaysan hubab culus. Al-Jabbana wuxuu ahaa mid qoslaya,
oo ugu hanjabiyay askarta in waqtigan uu yahay waqtigoodii ugu dambeeyay oo ay dhimanayaan maanta, kadibna ay ku soo xigayaan qoysaskoodu. waxay bilaabeen booliskii inay u diyaargaroobaan ka hortag ay ka hortagayaan kooxdaas, waxaana maqleen codadka matoorada baabuur ka soo socota meel fog. laakiin markii ay soo gaadheen gawaadhidii meeshii, waxay isu bedeleen hanjabaadihii ka imanayay El Jabo Elin kadib markuu arkay baabuurtii ciidanka iyo xoogaga gaarka uu soo istaagay meesha. ciidamadii waxay ku wareegeen qolkii uu ku jiray El Jabo, waxayna u diyaargaroobeen weerar kastoo ay suurtagal tahay inay ku soo qaadaan kooxdii El Jabo si ay u badbaadiyaan madaxweynahooda. laakiin muu jirin qof ka mid ah kooxdii El Jabo oo ka soo muuqday meesha, waana la soo xidhay El Jabo. laakiin markan umay sugnaan wax fursada uu ku baxsado mar labaad, maxaa yeelay booliskii Mexico waxay u dhiibeen ninkan ciidamada Maraykanka si halkaas loogu maxkamadeeyo looguna xidho xabsi ku yaala Maraykanka. ilaa maalintan aan joognana, El Jabo wuxuu ku sugan yahay qolkiisa uu kaga jiro xabsiga. qolkan uu ku jiraana waa qol uu ku jiro keligii oo xitaa ayna soo gelin qolka iftiinka fallaadhihiisu. wuxuuna ku qaataa qolkan gudihiisa 23 saacadood maalintii, wuxuuna wariyaa hawada dibadda ama uu arkaa fallaadhaha cadceedda kaliya 1 saac maalintii. haddii aad jeclaysanaysaan inaan ka soo sameeyo muuqaal maxkamadayntii El Jabo iyo tafaasiil ku saabsan xabsigiisii, insha Allah waxaan ka soo sameyn doonaa muuqaal faahfaahsan, laakiin wuxuu ku xidhan yahay arrinkani kaliya haddaad ka heshaan. haddii uu ku qanciyo muuqaalku, ha ka ilmaamin inaad like saarto. haddii aad ku cusub tahayna channelka Ogaal Cusub subscribe saar. waad mahadsan tahay.